waxaan aad ugu faraxsanahay maanta in aan leenahay war magaaladii hore Kismaayona aan xidhno magaalo casri ah oo naqshad fiican oo bal qurbo joogta iyo kuwa dibadda jiray ee ganacsatada iyo qof walba uu u soo hiloobo nolol loo abuuro dadku si ay meelaha kale ugu nool yihiin aad baan ugu faraxsanahay waxaa xaqiiqa ah dhismo xumo badan baan haysatay oo jid la'aana oo dhul yari ah maanta magaaladii Kismaayo hore markaan fiirino waxaa adag xaafadaha qaarkood meydka xataa in laga qaato in meydka laga aaso intii baabuur gala aad bay u adag tahay waa dhul isku rarana oo aan waddo lahayn waa nambar yaryar dhulku oo 13 aan ka badnayn taasaa markaa waxay keentay inaan shirkad baraybada kula heshiino bal inay noo sameeyaan naqshadii adduunka maanta shirkadaha baraybadka ka shaqeeya milestone Jubbaland heshiiska la gashay wuxuu ahaa naqshadaynta iyo dib u habeynta qaab dhismeedka ama qaab deegaanada magaalooyinka magaalada Kismaayo oo aan rabnay inay noqonin magaalo siyaasadeed noqoto magaalo ganacsi u furan Soomaali la maal gashado kuwa dibadda jiray iyo kuwa gudaha joogaaba waxaa in la soo jiidato ka mid noqonaysa in loo sameeyo environment ama noocii ay u samaysnaan lahayd ee dadka u tusi lahayd meel lagu noolaan karo lagu soo la maal gashan karo la deyi karayo inay noqoto waxaa asal oo marka hore deegaanka in la helo taasaa waxay sababtay markaa in la xidho bal magaaladii hore inta aan hadda ku jiray dadku dhul badan oo la iska cabirayo oo la iska derbi dhisanayo oo la iska dheeraynayaa socotay waxaan hadda ka bilownay geeska magaalada oo magaaladii hore 32 kilomitir noqonayso in jidkan lagu xidho badda ilaa badda kale wareegeeda magaaladu nooc jasiirada ay u samaysan tahay kabacdi siday noo sheegeen shirkaddu in halka ringarood ama halka wadda wax lagu xidhayo ilaa 30 mitir jidka 30 oo kale ay noqoto waxaan isleeyahay waa wax fiican oo bilicdeeda iyo wanaagga magaalada ba keenaysa magaaladii hore la doonay in wadooyinkooda la bixiyo la naqshadeeyo dib loo hagaajiyo magaalada dambana loo abuuro dhul warshadaha dhulka loogu talagalay dhul loogu talagalay real estate iyo guryaha noocaas ee dadku ku noolaan karaan dhul suuq iyo dadka dawladda loogu talagalay dadka dhexdhexaadka nolol iyo guryo la garan karayo waa inaan ubadkeena dibadda ku dhashay ee jira ee aan garanayn wadankooda la soo celiyo oo cariish iyo masquulkooda taagan iyo xageen galaa ayna odhanin iyo see loogu nool yahay si ay ula qabsaan marka hore ba loo abuuro wax u dhow meelaha ay ku noolaayeen oo kale oo jardiinooyinkii leh meelihii nasashada leh meelihii kubadaha lagu ciyaarayay leh tiyaatarradii leh masaajidadii leh goobaha caafimaadka leh waa in qaabkaa loo sameeyo taasaa markaa waxay keentay inaan maanta dhagax dhigo xidhidda magaaladii hore waxaan hadda aan dhagax dhigaynaa ahayd xidhidda magaaladii hore iyo furista magaalada dambe dadkana waxaan rabaa inay caawiyaan deegaanka degmada iyo hay-adda iyo maamulka dadka shaqada ku leho dadku ay isku dayaan sharciga loo sameeyey iyo waddada sharciga inay maraan taasaa dadka waxay u tahay waxtar taasaa waxay u tahay guul taasaa waxay u tahay wax berri ay ku hamiyi karaan waxaan is leeyahay magaalooyinka kalena waan tegi doonaa hadda shalay dheebley baan ka imid way dhisantay aad bay u dhisantay laakiin way adag tahay waddo inaad hesho sidaa doonta aad u martood u socoto taas macnuhu waxay keenaysaa waxaan rabnaa sistamka halkaan laga bilaabo Jubbaland oo dhan insha Allah in laga sameeyo magaalooyin kale Soomaaliyana ay nagaga daydaan annagu aan u noqono ilaa war dhaqankii fiicnaa Kismaayo laga abuuray xageen u doonaa waxaan u maray shirkado badan oo kale inay iman doonaan shirkadana ay qaaliyo doonto hadday shaqadaas si fiican u qabato aad baad u mahadsantihiin cagafta aan dhaqaajiyeen fuulay macnaheedu waxa weeyaan jidkaas la furayo ee labada magaalo lagu kala saarayo